بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa caawa inaan ka sheekeeyo taariikh yar oo ku saabsan xisbigii gobonimo doonka ahaa ee loo yaqaanay HDM ama xisbiya. taariikhdiisa wax badanaa waxaan maqalnay xisbigii SYL, xisbi dhagax tuur, xaawataako. marka waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo taariikh yara qarsooneyd oo aanan inta badan laga sheekeynin. ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo hadduu ilaah yiraahdo caawa. janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe, like, share iyo comment waa inoo muhiim. waa mahadsan tahay. waxaanu bilaabeynaa insha allahu tacaala barnaamijka ayaan gudagalaynaa. maxaad ka taqaanaa xisbigii digil iyo mirifle ee la oran jiray HDM party ama xisbiya digil iyo mirifle party? bartamihii qarnigii 20aad Soomaaliya waxaa ka hanqaaday dhaqdhaqaaqyo gobonimo doon ah, iyagoo markii hore ku bilowday qaab oo naadiyo ama ururo gargaar, ururo samafar camar ah ay ku bilowdeen. muuqaalkan waxaan ku fiirin doonaa oo aan kusoo qaadan doonaa ururadii halgankaas gobonimo doonka ahaa doorka weyn kasoo ciyaaray. taariikhda HDM aad ayay u ballaaran tahay, ma wada koobi karno. videogan waxaan rabaa inaan kaga hadlo bes xilligii la aas-aasay iyo raggii ugu horreeyey ee ururkaas aas-aasay ayaa rabnaa inaan uga hadalno, iyo deegaamadii ugu horreeyey ee uu faracyo ku samaystay ama laamo ku samaystay oo uu ka dhismay ayaan rabnaa inaan ka sheekayna hadduu ilaahay yiraahdo. ururkaas waxa uu garab yaalay ama la mid ahaa ururkii la oran jiray SYL ee ay soomaalida oo dhan maanta ay wada taqaano. labadaas urur waxay ahaayeen laba urur oo isku mid ah, isku dhigma, isku awood ah, isku mid ah. mid waa la qariyay, midna dibaddaa lasoo dhigay. sababtoo ah taariikhda waxaa la yiri mar walba waxa qora ninka guuleysta. sidaa daraaddeed xilligaas dadkii xisbigan ku midaysnaa waxay ahaayeen dad beeraley ah. xukunkiina waxa uu gacanta u galay dad ay u badan yihiin xisbigii kale ee SYL. marka barnaamijkan sababta aan usoo qaatay caawa muxuu yahay? waxaan usoo qaatay inaan isbarbardhig ku sameyno 65 sano kadib xilligii xisbigaasi lagu dhawaaqay, siyaasiyiintii xilligaas xisbigan samaysay iyo oo qarnigii 20aad ah, iyo siyaasiyiinta maanta joogta qarnigan 21aad, inaan isbarbardhig ku sameyno. saas darteeda usoo qaatay. ujeedadan kala ah waa taas, marka ila garta. xisbiga waxaa la aas-aasay sanadkii 1947 waxaana lagu aas-aasay magaalada muqdisho. waa 1947 waxaana lagu aas-aasay magaalada muqdisho. laguma aas-aasin baydhabo, laguma aas-aasin bakool, laguma aas-aasin meel kale. sababtoo ah dadka aas-aasay waxay asal ahaan kasoo wada jeedeen magaalada muqdisho. markaa idin leeyahay magaalada muqdisho ha u qaadanina dadka haddeer magaalada muqdisho jooga inay yihiin. waa dadkan haddeer south west lagu magacaabo oo lagu riixo labadan gobol inay saddexdan gobol inay degan yihiin. dadka lagu riixo, dadkaas ayay ahaayeen dadka ugu badan xilligaas magaalada muqdisho. sababtaas darteed ayaana loogu aas-aasay magaalada muqdisho xisbigii la oran jiray HDM, xisbiya digil iyo mirifle party. 1947 muqdisho ayaa lagu aasaasay. isla sanadkaas gudihiis waxa uu laamo ka samaystay magaalooyinka baydhabo, xudur, baydhabo oo gobolka baay ah, xudur oo gobolka bakool ah, luuq iyo baardheere oo gobolka geda ah, bu-aale oo jubbada dhexe ah. intaas ayuu wuxuu ka samaystay faracyo. sanadkii ku xigay ee 48 waxa uu faracyo ka samaystay shabeellaha hoose ilaa aad ka gaartid jubbada hoose oo kismaayo ah, oo xuduudka ilaa iyo magaciisi dhankaas aad uga baxdo. marka wuxuu ahaa run ahaantii xisbi aad u ballaaran oo ay aas-aaseen dad aqoon-yahano ah oo maxaa la yidhahdaa aan ka xusi karna magacyadooda. ilaahay ha u wada naxariista, badankood way dhinteen. badankood markaan leeyahay ma hubo inay qaar nool yihiin weli. aas-aasayaasha waxay kala ahaayeen sheekh cabdulaahi maxamed begedi, wuxuu ahaa
aasaasayaashii ayuu ka mid ahaa, waxaana uu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee xisbigii HDM. waxaa kaloo ka mid ahaa cabduqaadir maxamed aadan zoobe oo ay soomaalida aada u wada taqaano, oo isgoyskan magaalada muqdisho ku yaalo oo isgoyska sooba la yihahdo loogu magac daray. waxaa ka mid ahaa ustaad cusmaan sheekh cabdulaahi, waxaa ka mid ahaa cabdinuur maxamed xuseen, waxaa ka mid ahaa cabdinuur madawaraaba nin la yihahdo, jaylaani sheekh bin sheekh, abuukar cumar sheegow iyo mukhtaar boorow. guddoomiyihii ugu horreeyey waa sidaan idiin sheegay sheekh wuxuu ahaa cabdulaahi maxamed begedi ayuu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey oo uu yeesho xisbiga. taariikhda xisbiga aada ayay u ballaaran tahay. macnaha aan uga sheekeynaynana waxay tahay keliya inaan ifino oo aan soomaalida u sheegno waxyaabaha la qariyey ee taariikh ahaan aan u leenahay. soomaali baan nahay. gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta ee soomaaliyeed waxay xaq u leedahay in taariikhdeeda laga hadlo ama laga sheekeeyo. taas ayay xaq u leedahay. marka barnaamijkan wuxuu noqonayaa hadduu ilaahay yidhahdo barnaamij taxano ah oo aan habeen walbo qeyb yar aan kaga hadlayo. caawa waxaan kaga hadalnay xilligii la aasaasay iyo raggii aasaasay. xilligii la aasaasay waa idiin sheegay waa 47 ragga aasaasayna raggaas ayaa ugu muhiimsanaa oo 6 ah. ilaahay u naxariistay intii dhimatay. guddoomiyihii ugu horreeyeyna wuxuu ahaa